Saxuunta tuusha waa mid jiro, mararka qaarna waxay imaadaan dhulka. Markanna waxay imaadeen markii ay burburtay gurigeena oo anaga beri hore iskaga guurnay. Gurigeena wuxuu ahaa guri qurux badan, balse markaan wuxuu noqday guri laga cabsado. Dadka dhan ay dhahaan guriga cabsida. Gurigeen alaabaha uu soo tagay oo idil wax qiimo ah ma ay lahayn, balse boonbalii aan jeclaa markii ugu soo tagay aad ayaa u murkay, waana u xiisay boonbalihayga aan jeclaa. Saxuunta tuushane waxay qaadeen boonbalihayga, balse ma oga ayaga boonbalaha sidaan u jeclaa. Gurigan aad u jeedtiin waa gurigeena, waana guriga hadda arkaysiin oo sidaas u burbursanaa. Hooyaday iyo anigoo yar ayaa waxay ii keeneen boonbalahaas. Ayagana aad ayay ii jeclaayeen, mar walbana waxay ka fikirayeen farxadeyda. Boonbalahaas waxaa ka dhigtay saaxiib ilaa aan soo weynaaday, wuxuuna ahaa saaxiibka keliya aan leeyahay. Magaalada aad deganeen waxaa ku badatay qashinka iyo weliba qiica ay soo deeyaan warshadaha waaweyn. Biyaha xataa wuxuu isku bedelay madow iyo qiiq, xitaa dhadhan ma lahaanin. Magaalada dhanna waxaa ku faaftay wasaqdaas. Wararka haatan soo gaaray ayaa waxay sheegayaan magaalada idil inay dadka kala qaxayaan, waxayna noqotay magaalo sun aad u fara badan leh. Kadibna dadku waxay u dhimanayaan cudurro badan. Cudurradaas intaadan loo dhimanin waa in laga guuraa. Qaarada badan ayuuna ku faafay cudurka. Qof walba magaaladan degan waa inuu iskaga guuraa.
Hooyo iyo aabbo waxay go'aansadeen in magaaladan iskaga guurno. Waxaana bilowday inaan wada aruursado alaabteyda, balse aabaheyga ayaa i dedejiyay. Anigana boonbalaheyga meesha ayaa ugu soo tagay. Waxayna ahayd wax aad ii murjiyay markii aan boonbalaheyga soo tagay. Markii aan soo xasuusto waxaan isku dayay inaan soo qaato, balse aabaheyga ayaa xoog ii waday. Wayna ii suurtageli weysay inaan soo qaato. Waxayna ahayd wax aad u murugo badan, waayo waxaa ka tagay saaxiibkeyga aan jeclaa. Saxuunta duusha kuwa ka soo tageen waxay arkeen aniga qisadeeda iyo dhibkii i soo maray kadib markii aan ka tagay boonbalaheyga. Mid ka mid ah ayaga ayaa aad u saameeyay sheekadeyda. Boonbalaheyga waxaa lagu wareejiyay cunug yar. Waxaan u maleynayaa aniga hadda inaan faraxsanahay maadaama boonbalaheyga uu ii yaalo meel ammaan ah.